السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaad nagala socotiin waa toosiye ku soo dhowaada sheekooyin qiimo badan. maanta sheekadeennu waa ukuntii dahabka ahayd. waayadii hore ka mid ah waxaa jiray oday iyo xaaskiisa oo waayeela ahaa. wax xoolo ahna ma aysan qabin oon dooro ka ahayn. maalin walbana raashinkooda waxaa u ahaan jirtay hal xabo oo ukun ah oo markii ay karsadaan ay kala qaybsan jireen. ninka wuu isaga qanacsanaa, markii uu wixiisa cunayana bisinka ayuu u qabsan jiray. laakiin haweeneyda maalin walba way gunuunici jirtay oo waxa ay dhihi jirtay, ma waxaan cunaynaa jab ukuna, hal xabo ukun ah maalinna kama baxayna miya? odaygana waxa uu dhihi jiray, ilaahay ayaa noo qoray ee isaga samar, waan heli doonaa. waxay leedahay, goormaan helaynaa? maalin walba halkaan xabo oo ukun ah ayaan cunaynaa. waagii dambe waxa ay raashin u keentay digaaggii. markii ay raashinkii cuntay oo ay dhammaysatay ayay aad iyo aad u fakartay. waxa ay tiraaday, hashaan digaagga ah wax aan ka cunno ma lahan, hal xabo oo ukun ah keliya ayay dhashaa, maan iska iibinno oo wax kale kusoo bedelan. odaygii ayaa u imaaday oo waxa ay tiraahday, dooradan annaga waxaa cunan la, ayadana raashin badan ayay rabtaa, maan suuqa geyno oo shay ka muhiimsan oon cunno kusoo iibsanno. laakiin odaygii ayaa waxa uu yidhaahday, oo dooradani maalin walba hashaa xabo oo ukun ah ayaan ka cunnaa, haddii aan shay kale kusoo iibsanno hal maalin cunno maxaan sii cuni doonaa? iska dhaaf, hanuu joogto dooradeena, wax kalena waa raasanaynaa. ayadana waxa ay tiraahday, midaan ayaabana dhibtay, waxay ku fiicneed in la iibiyo. laakiin ninka odayga ah doorada aad iyo aad ayuu u jeclaa, waana uu ka diiday in la iibiyo. sidaas ayay xaaladooda ahaan jirtay in muddo ah. subaxgii dambe odaygii haddii uu soo kacay, waxa uu soo kacay xaaskiisa oon barjiifin. waxa uu yidhaahday, mina subax ayay xaaskaagii kala lahday. xaggee u kala lahday? laakiin ayadoo qeylinayso ayay soo gashay. soo orad, wax cajiib ayaan ku hayaa, muujisaa dhacday, ukun dahab ayay dhashay dooradii. indhayga miyaa? kaalay ila fiiri. isagana waxa uu yidhaahday, sidee bay ku dhalaysaa doorada ukun dahab ah? kaalay ka soo kac jiifka, adigaba kaalayo soo arag. meeshii haddii uu tegay xeradii digaaggii, waaba ukun dahab ah, waa sidii ay xaaskiisa sheegaysay. aad iyo aad ayuu ula yaabay oo la tacajabay. ukuntii ayuu soo qaatay, hadduu fiirshay waxa uu yidhaahday, waaba ukun dahab ah oo xaqiiqo ah, wayna culus tahay. alla doorada fiicana maanta hadiyad qiimo leh ayayna siisay, haddii ay tan ay noqoto dahab. kadibna odaygii waxa uu aaday suuqa, isaga oo ukuntii u raadinayo in laga soo iibsado. maalintii oo dhan ayuu dukaanba mar fiirinayay in qiimo fiican uu ku soo helo dahabkii uu watay. laakiin maalinkaas lacag fiicanna waa uu ku soo helay. waxa uu soo noqday gurigiisii isaga oo faraxsan. maalinkaas waxa uu soo iibiyey raashin aad iyo aad u fara badan. xaaskiisii ayaa dhahday, alla maanto raashinka macaan badanaa. isagana wuxuu u jawaabay, waxaadbaad moodaa in ay riyo tahay. waxay tiraahday, lacagtii oo dhan ma raashin ayaa kusoo iibisay, mise wax ayaa nooga soo reebtay? isagana wuxuu yidhaahday, haa, qayb kale ayaa noo soo hartay, intaana way noo soo noqotay. way ma sugtay ma intaas keliya? haa, waxaanu raashin ah ayaan inoo soo iibiyey, waa tii aa oran jirtay raashin badan goormaan cunaynaa. maalinkaas waxay u ahayd maalin farxadeed ayay u ahayd. habeenkiina waa iska seexdeen, iyada oo odhanayso, haddii ay beri ukun aan helno dahab ah maxaan ku samayn doonaa? waagii markii uu baryay, aroortii horeba waxa ay ku soo kal lahday dooradii. hurdadii ayay odaygii ka kicisay. waxa uu yidhaahday, maxaad bina subax noogu soo dheelmanaysaa?
waxa uu yidhaahday fiiri maantana waxaa inoo hayaa ukun dahab ah. wuu soo booday asagoo aad iyo aad u faraxsan. waxay tidhaahday ukaadi maanta aniga ayaan qaadayo oo suuqa geynayo waxna inoogu soo iibinayo. sidaas ayay maalintii suuqa ku aaday haweenaydii. ma aysan soo noqon oo maalintii oo dhan waxa ay sugayay in ay dhaqso imaato, laakiin maba aysan soo noqon. xilli maqribadii agtii ah ayay soo garaacday. albaabkii haddii uu ka furayba waxa ay xambaarsan tahay alaab aad iyo aad u tiro badan. waxa ay ku dhahday dharka ayaa inaga bedelayaa, dhar cusub ayaan kuu soo gaday, anna waa soo gatay, gurigana waan iska qurxinaynaa. maalinkaas gurigii meel walba fiyooro iyo waxyaabo qurux badan iyo dahyo ayaa lagu dhejinayay, oo gurigii gudihiisii waxaa laga dhigay guri aad iyo aad u qurux badan ayaa laga dhigay. waana ay faraxsanaayeen. habeenkii markii la gaaray oo la seexday, haweenaydii way seexan weysay. hebelow kaac oo maxaa dhacay? waxay tidhaahday dooradeenii ma nabad qabtaa? haa, sharqan ma maqashay? maya, anigu welwel ayaa hayo ee soo fiiri digaagadii in ay nabad qabto. habeenkii uu soo baxay ninkii odayga ahaa isaga oo digaagadii fiirinayay. iftiinkii ay ku fiiriyey way fiican tahay, wayna nabad qabtaa. alla, haweenaydu lixajeclada intay ku korodhay ayay qarweysaa ayuu yidhaahday. wuu soo noqday soo dhahaya dooradeennadii way nabad qabtaa, wax balaayaana ma jiro ee seexo. wuu iska seexdeen, laakiin wax yar kadibba waxa uu maqlay sharqan. haddii uu soo kacayba waa haweenaydii oo dooradii ka soo bixisay xeradii. waxa uu yidhaahday maxaa kugu dhacay? waxa ay ku dhahday aniga bannaanka dooradan waan ku aamini waayey, waxa inala seexanaysaa meesha aan seexanno. isagana waxa uu yidhaahday waa sidaa aad jeceshahay. sidaas ayay gudi ku keentay. waxay tidhaahday digaagyadyahay agteena maanta qiimo ayaad ka leedahay, meesha aan seexanana waad nala seexanaysaa. subaxdiina ukuntii dahabkii ahaa ayay dhashay digaagadii. laakiin maalintaas ma la bixi karin oo roob xoog leh ayaa da-ayay. iyakana way faraxsanaayeen oo waxay is odhanayeen markii uu roobka joogsado ukuntan suuqa ha loo qaado hana la soo iibiyo. laakiin intii ay roobka sugayeen, gurigii ayaa waxa uu soo daayay dhibcihii roobka ayuu soo daayay oo waxa uu ahaa guri duq ah. odaygiina waxa uu yidhaahday markii uu roobkan roob do-o gurigan asaga oo dhan ba uu soo wada daynayaa. haweenaydii oo meelihii biyaha soo dayay weelal u dhigaysay ayaa cabbaar fakartay. waxa ay tidhaahday maan gurigan iska bedelno oo guri cusub dhisanno. waxa uu yidhaahday xaggee lacagta ka geynaynaa? waxa ay ku tidhaahday ma u jeedid miyaa horteena waxaa socdo? maalintii hal ukun ayay dhashaa. haddii aan birayno caloosheeda ukun tiro badan ayaa ka buuxdo oo dahab ah. hal mar ayaan suuqa geysanaynaa waxaas oo dahab ah, guri weyn oo qurux badan oo maasha allahna oo ku dhisanaynaa. ninkii cabbaar uu fakeray, ra'yigiina sax ayuu la noqday oo waxa uu yidhaahday waan kugu raacsannahay. intaa maalinba hal xabba ka sugi lahayn in aan hal mar waxa dhan aan suuqa iibsanno, si fiicanna wax ugu qabsanno. sidaas ayaa dooradii maskiinta eed lagu buriyey, laguna soo qabtay, waana la bireeyey. laakiin nasiib darro waxay ka dhacday. dooradii haddii ay kala jeexeen caloosheedii waxay u tageen dhiig keliya iyo mandhiciro. aad iyo aad ayay u murugoodeen. waxay dhaheen annaga ayaa khasaarnay, gacmaheennii ayaan khasaaro ku raadsanay, ukun dambo dahaba ma jirto, alla maxaa inagu watay? sidaas ayay ku xoolo beeleen labadoodii. dooradii maskiinta ahaydna ay ku dileen.